soo dhawaada barnaamijkeena ciyaaraha maanta waxaan ku soo qaadan doonaa wararka suuqa kala iibsiga iyo waxyaabaha ka cusub saacadihii ugu dambeeyay ayaan barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa haddii aan u guda galno barnaamijkeena xidiga kooxda Chelsea ee lagu magacaabo Pulisic ayaa doonaysa kooxda Manchester United in ay soo qaadato ayadoo suuqa kala iibsiga ka doonaysa ciyaaryahanno dhowr ah kooxda Manchester United sidoo kale xidiga lagu magacaabo Besdi ayay doonaysaa kooxda Manchester United in ay safkeeda ku soo darsato xidiga lagu magacaabo Eden Hazard ayaa doonaysa inay qaadato koox lagu magacaabo Calistaraga xidigii hore ee kooxda Arsenal hore ugu ciyaari jiray ee lagu magacaabo William ayaa doonaysa kooxda Fulham inay dib ugu soo celiso horyaalka Premier League ayadoo doonaysa inay safkeeda ku soo darsato xidiga lagu magacaabo Fofana ee ka tirsan kooxda Leicester City ayaa u sheegay kooxda Leicester City inuu doonayo inuu baxo asagoo warqadda bixitaanka codsiga u gudbistay kooxdiisa Leicester City ayadoo hore u doonaysay kooxda Manchester United iyo kooxda Chelsea xidiga lagu magacaabo Casemiro ayaa doonaysa kooxda Manchester United in ay safkeeda ku soo darsato si ay beddelka xidiga lagu magacaabo Cristiano Ronaldo uga dhigato ayadoo keeni karta garoonka Old Trafford ee ku ciyaarta kooxda Manchester United xidiga lagu magacaabo Asensio ee ka tirsan kooxda Real Madrid ayaa doonaysa kooxda Liverpool u soo bandhigtay ayadoo kooxda Liverpool ciyaaryahanno dhowr ah dhaawac ugu maqan yihiin xidiga lagu magacaabo Diego Jota iyo xidiga kale uu ka mid yahay Ibrahim Konate ayadoo xidiga Darwin Núñez laga ganaaxay 3 kulan kooxda Liverpool ayadoo la ciyaari doonto maalinimada Isniinta kulanka kooxda Manchester United la ciyaari doonto ayaa loo sheegay inay haatan qaadato xidiga lagu magacaabo Asensio ee ka tirsan kooxda Real Madrid xidiga lagu magacaabo Maki ayaa doonaysa kooxda Manchester United inay safkeeda ku soo darsato xidiga lagu magacaabo xidiga kooxda Barcelona ee lagu magacaabo Aubameyang ayaa la sheegay inaysan doonaynin kooxda Manchester United inay safkeeda ku soo darsato warkaas waxaa sheegay wargeyska lagu magacaabo Fabrizio Romano ayadoo haatan ka sugayo dalab xidiga Aubameyang ee kooxda Chelsea xidiga Naby Keita ayaa la sheegay inuusan doonaynin inuu u saxiixo kooxda Liverpool heshiis kordhin u sameeyo ayadoo kooxda Liverpool kula tartami karta xilli ciyaareedka dambe kooxda Real Madrid xidiga lagu magacaabo Bilmag ee la sheegay inay soo qaadanayso kooxda Liverpool fadlan hadday tahay markii kugu horeysay aad soo booqato YouTube-keena subscribe noo saar noona share garee muuqaalada aan soo dhigno gambaleedkana furo si ay kuu soo gaaraan wararka ciyaaraha